runtii taasi waxay tusinaysaa khilaafka madaxda Soomaalida ee madasha qaranka iyo kala fogaanta ku yimid saaxiibadii shalay wada socday ee ku heshiiyey in dastuurka la bedelo ku heshiiyey in magaranaysa doorasho qof iyo cod ah la qabto shirki baydhabo ama shirkii kan ka horreeyay ee madashu ay iskugu tagtay magaalada muqdisho marka waa nasiib darro iyo niyad jab ku imanaya shacabka Soomaaliyeed oo ku tusinaya wadanka xaaladda uu ku jiro ee kala daadsanaanta iyo magaranaysa kala fogaanta madaxda Soomaalida ku yimid watahay hadda Jubbaland waxaa la socotaa in hadda madaxweyne Axmed Madow hogaaminayay uu ku laabtay magaalada Kismaayo oo shirka uu ka baxay horay waxa uu jiray khilaafkii dawladda iyo Puntland marka maxaa mataqaanaa keenaas lii kara hadda soo dejiyay khilaafaadkan horta leh runtii waxaad moodaa saaxiibadii shalay wada socday waxay ku heshiiyeen inuu ahaa wax aan maaragtay waaqic ahayn iyadoo ay Puntland maqan tahay oo ay maaragtay horeyna Somaliland ay heshiis maqnayd in magaranaysa ay yimaadaan oo masiirka dalka laga wada hadlo oo dadka maqan aan la qancinin marka waxaad moodaa inuuna waaqic ahayn haddii la yidhi marka looma joojinayo waa la soconayaana maanta in ay Axmed Madow uu baxo oo saaxiibadii uu ka baxo waxaan isleeyahay wuxuu ka arkay dantiisa siyaasadeed buu ka arkay dan ummadeed iyo magaranaysa mustaqbalka dalka iyo dadka midna oo madanaya Axmed Madow ee danahiisa gaarka ayuu ka dhex arkay inuu tareenka ka dego taasna ay uga faa'iido badan tahay inuu sii saarnaado tareenka oo muddo kororsi uu aado oo hal sano ah sababta dowladda federaalka muddo kororsigii hore ay siisay maamul goboleedyada way ku khaldanayd aragtidayda waxay ahayd in magaranaysa xilligaasi dowladda xasanna waa cusbayd awoodna way lahayd in la yidhahdo nin kasta oo maamul goboleed ah oo muddo xileedka uu ka dhamaaday doorasho waa inuu aadaa doorashaduna magaranaysa ay nooc ay tahay ay dowladdu jaangoysa marka way ku qasbanaayeen in ay maaragtay awaamirta dowladda ay u hoggaansamaan laakiin muddo kordhintii la siiyey sida Cabdicasiis Goobta Galeen oo kale 2 sano oo muddo kordhin ah oo uu iska joogay kursiga Axmed Madow hal sano iska joogay dhowr bilood iska joogo Buntland ay hadda ka dhamaanayso September ay ka dhamaatay September oo October hadda uu sharci darro ku joogo waxaasoo dhan waxaas leeyahay qorshihii madaxweynaha iyo damacii madaxweynaha ee isaga naftiisa inuu soo laabta ahay ayaa sabab u ah Caynul Caafiya Hospital waxa uu ka daweynayaa xanuunka baabasiirka ma dareemaysaa dhabar xanuun caajis joogta cuncun dhanka hoosa saxarado kugu adag iyo hamiyari dhanka gogosha haddaba iskaga ciribtir xanuunka baabasiirka muddo ka yar 15 maalin adigoon wax qalliina lagugu samayn wixii faahfaahin kala xiriir telefoonada kala eberli halhal 37 83 ama eberli halhal 37 86 ama lambarka gaaban ee 3777